iyadoo xarag jar lagu sameynayo xaruntii baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug waxaa intoodii badneed caasimadda ka maqan xildhibaanada baarlamaanka kuwaas oo ku kala maqan dalka iyo dibaddiisa sababta keentay in xildhibaanadu aysan dib ugu laaban fasaxoodii kadib caasimadda waa inaysan mushahar qaadan muddo 3 bilood iyadoo ay xusid mudan tahay in xaruntan cusub lagu dhisay lacag laga jaray mushaharkooda wasaaradda maaliyadda maamulka Galmudug oo qaabilsan bixinta mushaharaadka xildhibaanada ayaan ahmiyad imaan siin xildhibaanada baarlamaanka iyadoo beddelkeed wasaaraddu kureysay in ka badan 10 diyaaradood oo lagu soo daadgureeyay tiktokero fanaaniin iyo dad kale intii lagu guda jiray sanad guuradii maamulka Galmudug oo ka dhacday magaalada Dhuusamareeb tiradii ugu badneed oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Galmudug inaysan goobjoog u ahayn xarag jarka xaruntada cusub sabab la xiriira dhaqaale la'aan waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay wasaaradda maaliyadda oo iyadu lahayd bixinta mushaharka xildhibaanada waxaana qasnada maaliyadda toddobaadkan laga saaray $100,000 oo qayb ka ahaa dabaaldegii 14 Agoosto xildhibaano ka mid ah baarlamaanka maamulka Galmudug kuna sugan Muqdisho ayaa hadda ku howlan sida ay tahay inay uga jawaabaan iyo tilaabada ay qaadi karaan waxaa la filayaa tiro badan oo xildhibaanada ka mid ah in saacadaha soo socda ay warbaahinta ka soo muuqdaan iyagoo ka hadlaya sida ay sheegeen tixgelin la'aan loo muujiyay xildhibaanada golaha oo la daafurayo xarunta gulahooda oo lagu dhisay lacag laga jaray mushaharkooda